Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaartana ugu xiran meel walba dunida tacala ka joogtaan waxaa idinleenahay waqtiga haydii wacnaada gaas maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno qisada jacayl ee dhex martay Kareena Kapoor iyo saygeeda Seif Ali Khan iyo sida isku barteen iyo filimkii ka dambeeyay inay isku bartaan lamaanahan inay isku soo dhawaadaan yaase ka dambeeyay haddaba waxaan doonaynaa maanta inaan ka faalloono xoogoo yar qisada jacaylka lamaanahan intaan u guda galin guys waxaan idinka codsanaynaa marka hore inaad barnaamijkeena noo subscribe gareysaan oo like gareysaan oo share gareysaan wixii fikirkiina qaybta hoose nagula wadaagtaan haddaba soo dhawaada guys. Kareena Kapoor iyo Seif Ali Khan waa mid ka mid ah lamaanayaasha ugu caansan Bollywood-ka inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in labadan jilaa ay isjeclaadeen xilli ay ku guda jireen filimkooda Tashan. Sawir-qaade caan ah oo lagu magacaabo Deborah Ratney ayaa shaaca ka qaaday in labadood ay markii ugu horeysay ay kulmeen sanadkii 2005 waxay iska kaashadeen duubistoodii ugu horeysay filimkii oo wadajir ah. Dhowaan Deborah Ratney waxa uu qabtay kulan su'aalo lagu weydiinayo oo la magac baxay wax walba i weydii wuxuuna yiri anigu waxaan ahay Deborah Ratney waxaan muddo 25 sano duubayay filimada Bollywood-ka. Waxaa la weydiiyay dhowr qof oo caan ah oo ay ku jireen Seif Ali Khan iyo Kareena Kapoor lamaanayaasha. Mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa uu la wadaagay sawir hore oo ka mid ah sawir qaadista Deborah kaasoo uu ka qaaday Kareena iyo Seif Ali Khan. Waxaa laga weydiiyay Deborah taariikhda sawirkaasi. Waxaa cajiib ah sida ay isugu yimaadeen sanado kadib. Isagoo ka jawaabaya Deborah wuxuu yiri markii koowaad ee weligood kulmaan waxa ay ahayd istuudiyaha halkii ku kulmeen. Isagoo dhoola cadeynaya waxa uu intaa ku daray tani waa meesha ay wax walba ka bilowdeen. Kareena ka hor intaysan isu kaashan Seif waxa uu guursaday jilaaga Amrita Sai. Seif iyo Amrita waxay isguursadeen Janaayo 1991 waxayna kala tageen 2004 13 sano ay isqabeen. Amrita Sai waxay Seif Ali Khan u dhashay gabar oo la yiraahdo Sara Ali Khan oo dhalatay Agoosto 12 1995 iyo wiil la yiraahdo Ibrahim Ali Khan oo dhashay bishii Maajo 5 2001. Kadib hal sano ay kala marnaayeen Amrita waxa ay u muuqataa in Seif ay la kulmay Kareena markaas ay si aad ah isugu soo dhawaadeen. Kadib wada shaqayn dhex martay waxay jileen filimada sida Log Karkil oo 2003 soo baxay, Omkara 2006 soo baxay, Tashan 2008, Kurbana 2009 iyo Ajanta Vinod oo 2012 soo baxay iyo hawlo kale oo ay wada qabteen. Seif iyo Kareena ayaa isguursaday sanadkii 2012 waxaana u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo Taimur Ali Khan oo 6 jir ah iyo Jahangir Ali Khan oo 2 jir ah. Balse Kareena Kapoor ayaa dhawaan shaaca ka qaatay inay guurka diiday Seif Ali Khan 2 jeer ka hor intaysan isguursanin. Maxaa sababay? Kareena oo filimkeeda u dambeeyay Laal Sai Jad ka soo muuqatay ayaa oo guur diiday jilaaga Rupa ayaa la weydiiyay in ay sidoo kale guurkii uu soo bandhigay ka diiday Seif Ali Khan ka hor inta aysan aqbalin. Kareena oo ka jawaabaysa ayaa u sheegtay Bollywood Bubble wargeyska la yiraahdo xataa hadda ma xasuusto waxaa laga yaabaa inay ahayd 2 jeer ama ka badan laakiin wax muhiim ah ayaa ah in ugu dambeyntii aan iri maadaama ay yihiin laba jilaa ah oo caan ah oo ay warbaahintu aad u baadigoobaan ayaa waxaa sidaas si la mid ah ay diiradda warbaahinta u saarneyd carruurtooda oo ay warbaahinta si aad u hadalhayeen. Ayadoo ka hadlaysa arrintan qoraantii sanadkan Kareena ayaa u sheegtay Hindustan Times wargeyska la yiraahdo aad ayaan u furfuranaa anigii saygaba waalid ahaan weligee waxba kama qaranin warbaahinta sidoo kalena carruurteedina way sawiraan. Mar la weydiiyay waxa ku kalifay in markii ay hore ay ka diiday guurka uu soo bandhigtay Seif jilaagan ayaa tiri wali jacayl waan u qabay waxaa laga yaabaa in aan u haystay inay waqti hore tahay ama aan u baahnayn waqti aan aad isugu barano. Waxaan filayaa taasi inay sabab u ahayd laakiin waxaan u maleynayay inaan mar walba hubay in aan guursan doono ayay tiri
Kareena Kapoor. Lamaanahan ayaa u dabaaldegi doona bisha Oktoobar 10 sano guuradooda kasoo wareegatay guurkooda. Kareena Kapoor waa actress caan ah oo ku guuleysatay bilado muhiim ah. Waxay shirkadda aflaanta Hindiga ee Bollywood ka tirsaneyd muddo 20 sano ah. Mar ay la hadashay laanta BBC-da ee la hadasha Aasiya, waxay sheegtay inaysan marnaba joojinayn aflaanta iyo tartamada. Kareena Kapoor Khan ayaa sheegtay inay dooneyso in aflaanta kasii mid ahaato 30 sano ee soo socota, iyadoo dooneysa in ay hesho khibrad aad ugu filan. Saif Ali Khan waxaa lagu qeexay inuu yahay jilaaga afraad ee dhaqaalaha ugu badan ka sameeya jalista aflaanta Bollywood-ka, marka laga soo tago Aamir Khan, Shah Rukh Khan iyo Salman Khan iyo Akshay Kumar. Aabihiis waxaa lagu magacaabaa Mansoor Ali Khan Patudi. Waxa uu ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ciyaaraha cricket ee dalka Hindiya. Haddaba guys, waxaan intaa kusoo koobaynaa taariikhda koobneed ee u dhaxaysay Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan saygeeda. Lamaanahan intaan kusoo koobaynaa. Haddaad doonaysid inaad aktarada sidaan oo kale taariikhaha oo la xiriirkooda jecel, insha Allah qaybta hoose comment-iga nagula wadaag. Guys, waxaan markale idin ka codsanaynaa inaa subscribe gareysaan, like gareysaan, share gareysaan. Waana mahadsantiin.